heshiiskaas oo aan runtii u aragno inuu dalka ka wadayo meel uu muddo dheer fadhiyey una wadayo meel bulshada adduunkuna nagu yaqaano Soomaaliduna ay ku qacsan tahay wixii ka dhiman ama wixii laga qabana cid walba oo walaal ah oo wax ka qabto waa soo dhaweynaynaa walaalihii ama walaalkii ka maqanna waa doonaynaa hadii la yiraahdo lama kala maarmo lama kala maqna qaab kasta oo tahay tabashadu waa labo midna waa mid gaara midna waa mid guud oo mustaqbalka iyo horumarka dadkan iyo Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed taabanaysa walaal kasta waxaan leenahay midda gaarka meel iska dhig midda mustaqbalka taabanaysa horumarkeena ka tarjumaysa middaas soo bandhig taasaan laga hadlayaa taasaana mudan in laga hadlay markii runtii isbedel dhacayo ama la guurayo ama meel laga tagayo meel kale loo guurayo waxay leedahay tabasho waxay leedahay see loo guuraya xagee loo socdaa meesha dad badan waxay la tahay wixii saxda ah meeshii la fadhiyay tahay wixii saxda ah meesha la fadhiyo ma ahan meeshaas waxay ahayd meel aan isla ognahay oo laga maarmi waayay oo mar walba la yiraahdo maanta aan oo kacna meesha maanta aan meesha oo kacnana waxa sax ah in laga kaco oo meel lagu waarayo la degaa hadii la yiraahdo runtii madaxdu waliba kuwa wadadeena dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa iska jecelnahay ninkii gaara iyo ninkii kaleba in hadba si gaar ah saf loo soo galo leeyahay waa sognahay baashi maxaa ka leedahay maanta laakiin hadda waxaan diyaaruna anaguna aan saf galno dadka aan shacabka la mid noqono marka wax anaga ugu horeynaa walaalaha geedigu dhibay waxaan leenahay waa la wada guuray annagana geediga ugu hooseynaa hal geediga midka saxda hal wada aqbalo marka runtii walaal aan eedaynaa ma jiro qof walba waxaan leenahay waa mudan tahay aragtidaada mudan tahay ra'yigaada mudan tahay laakiin waxaan lama kala maarmo midnimada wadajirka horumarka aan wada ilaalino dalkuna hadda waxaad moodaa si sax runtii meeshii la fadhiyay waa laga tagay dabaysha socota hadda mid istaagaysa ma ahan dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waa inay awood gacantooda gasho